daawadayaal halkani waa warbaahinta Haga Media ku soo dhawaada warka duhur ee Haga Media qodobadana waxa ugu waaweyn wafdi heer sare ah oo ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta oo la sheegay in lagu casuumay xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe wafdigii ugu cuslaa oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta tagaya magaalada Kismaayo kana dhoofay magaalada Muqdisho saraakiil Etoobiyana oo gaaray magaalada Kismaayo iyo shaki laga qabo tagitaankooda magaalada Kismaayo amisom oo dadreeyada ku dishay magaalada Muqdisho kadib qarax lagula eegtay wadada warshadaha madaxweynaha Galmudug oo la sunna fariin adag u diray ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo talaabo culus maanta qaadaya iyo nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo lagu toogtay bartamaha magaalada Kaabul ee wadanka Afghanistan hagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu waaweynaa u diyaar garooba asagoo faahfaahsan warar ay heshay warbaahinta Haga Media ayaa waxa ay sheegayaan in wafdi heer sare ah oo ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta in ay ka qayb galayaan xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xafladan ayaa waxa la sheegay in lagu casuumay warqad casuumaad loo diray xubno sarsare oo ka tirsan boqortooyada wadanka Imaaraadka Carabta kuwaas oo la tilmaamay in ay ka qayb galayaan xafladda caleemasaarka Sayid Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed Jubbaland oo dhici doonta maalmaha soo socda wararku waxa intaas ay ku darayaan in wafdigan ay uga galeeyeen in ay ka qayb galaan xafladda caleemasaarka sida ay sheegeen warar lagu kalsoon yahay qubarada falanqeysa arrimaha siyaasadda ayaa qaba in wafdi heer sare oo ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta hadii ay tagaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay ka dhigan tahay in khilaafka u dhaxeeyay Imaaraadka Carabta iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya uu cirka isku shareeray dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay xiriirka u jartay dawladda Imaaraadka Carabta waxaana intaasi wixii ka dambeeyay Imaaraadka Carabta ay joojiyeen tababaradii ay siin jireen ciidamada qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale howlihii shaqo ay ka wadeen magaalada Muqdisho iyo gobolada dalkeena Soomaaliya wararku waxa intaas ku darayaan in wafdiga heerka sare ah ee ka tirsan dawladda wadanka Imaaraadka Carabta in ay tagi doonaan maalinta bari ah magaalada Kismaayo ee caasimada gobolka Jubbada Hoose ahna caasimada dawlad goboleedka Soomaaliyeed waa caasimada ku meel gaarka ah ee dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland geesta kale wafdi culus oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa lagu wadaa inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho ee Aadan Cabdulle Ismaan Aadan Cadde wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay la socdaan xubno ka mid ah xildhibaanada iyo xisbigiisa ayaa ka tagaya magaalada Muqdisho waxayna ka raacayaan diyaarad kuwaas oo tagaya magaalada Kismaayo wafdigan ayaa ka qayb galaya sidoo kale xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Sayid Axmed Madoobe waxaana sidoo kale halkaasi ka socota xafladda qabanqaabada ee lagu soo dhaweynayo wafuudan uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud magaalada Kismaayo waxaa sidoo kale la filayaa in saacadaha soo socda ay ka degato diyaarad sida madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo asagana saaka ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Garowe ee caasimada Puntland magaalada Kismaayo ayaa waxay martigelinaysaa caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kulamo siyaasadeed oo looga soo horjeedo dawladda federaalka ee Soomaaliya hore halkaasi waxa ugu sugnaa madaxweynayaashii hore ee maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya wafdiga madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay si raaxo leh la sheegay inay ku dhoofeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale la filayaa in saacadaha soo socda ay tagaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isla wararka Kismaayo ayaan ku jirnaaye saraakiil ka socota dawladda wadanka Itoobiya ayaa waxa ay maanta ay gaareen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ee caasimada ku meel gaarka ee Jubbaland waxaa la sheegay in shaki weyn arrintaasi ay ka dhalatay iyadoo wararku ay tilmaamayaan in tigidda magaalada Kismaayo wafdigan ay calaamad su'aal gelin karto qabsoomida xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed Jubbaland saraakiishan Itoobiyaanka ayaa la sheegay inay gaarayaan ilaa iyo 7 oo ay ka mid yihiin generaallo iyo korneylo kuwaas oo la sheegay in diyaarad qaas oo kuwa militariga ah ay ka qaaday magaalada Baydhabo ee caasimada gobolka Bay ay geysay magaalada Kismaayo saraakiishan ayaa kulan la qaatay saraakiisha ciidamada amisom ee ka socda dawladaha Itoobiya iyo Kenya ee ku sugan magaalada Kismaayo wararku waxay sheegayaan in tilaabadan ay ka dambeysay ka gadaal markii la doonayo in halkaas uu ka bilowdo howlgal ka dhana dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab wixii ku soo kordha wararkeena soo socda ee Haga Media ayaad ku maqli doontaan insha Allah
kolonyo ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qarax waxaa lagula eegtay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka Caymiska. waxaa la sheegay in qaraxaasi uu haleelay gaari nooca qafilana oo ay leeyihiin ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. rasaas ayaa la sheegay in dhowr jaha ay u fureen kadib markii qaraxaasi lala eegtay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. goobjoogayaal ku sugan halkaasi ayaa Haga Media waxay u xaqiijiyeen in rasaasta ay fureen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay ku dhinteen 2 qof oo shacab ah, 3 kalena ay ku dhaawacmeen. dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa ahaa dhalinyaro ku qaxweynayay agagaarka Caymiska marka qaraxa loo dhigay ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhowr jeer waxaa lagu qarxiyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaana sidoo kale howlgalku ay tilmaamayaan in baaritaano waaweyn ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ay ku sameeyeen agagaarka qarax uu ka dhacay inkastoo aysan jirin dad ay u soo qabteen. Al-Shabaab ayaa qaraxyo la beegsada ciidamada midowga Afrika iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf ayaa fariin adag wuxuu u diray maamulka Al-Sunna wal Jameeca ayaa ka hortimid guddigii doorashooyinka ee dhawaan ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha. madaxweynaha maamulka Galmudug oo qoraal kooban soo dhigay baraha bulshada ayaa waxa uu sheegay in Al-Sunna wal Jameeca ay xuriyaaminayso hanaanka doorashooyinka ee ka socda deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. waxaana uu tilmaamay in Al-Sunna wal Jameeca ay tilaabo qaldan ay ku dhaqaaqday waa haddii ay ka hortimid guddigaasi oo gogol xaar u ah sidii Galmudug ay u yeelan lahayd maamul midaysan. madaxweynaha maamulka Galmudug oo la tilmaamo inuu saaxiib dhow la yahay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in uu hadda dhabarka ka tooganayo maamulka Al-Sunna wal Jameeca ayaa inta badan waxay ka soo horjeedaa qaabka ay u socdaan dhismaha maamulka Galmudug. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa maanta waxaa la filayaa in uu xariga ka jaro xarunta cusub ee xisbiga wadaniga Soomaaliyeed uu hogaamiyo. ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi oo horey u soo noqday ra'iisul wasaare dowladii uu hogaaminayay madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa maanta wuxuu xariga ka jarayaa xarunta dhexe ee xisbigiisa oo la yiraaho xisbiga wadaniga Soomaaliyeed. Cali Maxamed Geedi ayaa sidoo kale wuxuu saaxiib dhow la yahay xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina nin isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa maanta waxaa lagu toogtay bartamaha magaalada Kaabul ee wadanka Afghanistan caasimadda waa. ninkan oo soo xirtay jalbaab iyo indhashareer ayaa isku soo xiray waxyaabaha qarxa waxaana la sheegay inuu doonayay inuu beegsado xarun laga raaco tareenada oo ku taala magaalada Afghanistan iyo sidoo kale safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Kaabul ee caasimadda wadankaasi. wararku waxa ay tilmaamayaan in ninkan ay toogteen ciidamada gaarka ee Mareykanka ee halkaas ku sugan. warkii oo aad kala socoteen Haga Media qiyaaray waa naga intaas tan kulan dambe nabadgelyo.